fariin jacayl oo qalbiga u diirinaya qofka aad jeceshahay. Markay tahay qeexidda jacaylka, doorashada kelmadaha saxda ah ayaa ah waxa ugu muhiimsan. Waxa muhiim ah ma lahan in aad jeceshahay qof haddii aadan dooran karin kelmadaha saxda ah. Haddaba halkan kaga bogo liiska kelmadaha qalbiga diirinaya oo aad u diri karto qofka aad jeceshahay. Hubaal waxa ah haddii aad la wadaagto qofka aad jeceshahay inuu dareemayo in jacayl baaxad weyn aad u qabto. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe inoo saar oo noo sii share garay si aan u helno kuwa adigu kale u wanaagsan. haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsan tahay, oo like inoo saar si aan u soo badinno muuqaalada oo aad noogu noqoto dhiirigeliyaheena. waxaan u maleeyay in jacaylka laga badbadiyey ilaa maalintii aad adigan ku jeclaaday. waxa aad bedeshay wax waliba oo adduunkayga iyo noloshayda ah. uma baahni kun sababood si qaas u dareemo, keliya waxaan u baahanahay waa inaan ku noolaado adduunkan. waxaa tahay quruxda noloshayda. jacaylkaan kuu qabo wax kuma lihi aniga, wax waliba oo ku saabsan sida aad tahay iyo sida aad farxadda igu keento qof kasta oo hareerahayga ah. ilaah ayaa ii doortay inaan noqdo lamaanahaaga nolosha, maadaama aysan jirin cid i fahmaysa sida aad adigu ii fahmayso. waan ku jeclahay, ila joog mar kasta. waxaad i dareensiisay inaan ogaado inuu jacaylku yahay dareenka ugu fiican ee uu qof dareemi karo. waad ku mahadsan tahay imaatiga noloshayda. waan ku jeclahay, ma qiyaasi karo in aan ka badbaadi karo dhibaatada noloshayda jacaylkaaga la'aantiisa iyo taageeridaada. si adag u qabso gacantayda. waan ku jeclahay. haddii lay weydiiyo in aan kala doorto adiga iyo riyooyinkayga, ma garan karo waxa aan samayn doono, sababtoo ah in aan kula kulmo ayaa ah keliya riyadayda. waan ku jeclahay. waxaad dhoola caddayn ka keentay wejigayga, waxa aad farxad u keentay qalbigayga. waxa aan ku faraxsanahay in aad adigu tahay waxa keliya ee aan ka fikiro maalinta oo dhan. waan ku jeclahay. waxa ugu fiicnaa ee jacayl aan kuu qabo ayaa ah in aan bilaabay kuraaxaysiga noloshaada in ka badan sidii hore. waan ku jeclahay. xitaa dhakhtarka ayaa la yaabi doono sida uu wadnahayga u garaacmo, si xoogan ama si hoose marka aan adigu kaa fikirayo. waxaad iga dhigtaa qof dareen fiican leh. waxaad iga soo saartay dareenka ugu quruxda badnaa, kaasi oo aan muddo dheer qarinayay. i rumayso marka aan ku iraahdo jacaylka aan kuu qabo wax uu ka badan yahay wax walba oo adduunka ah. waxa uu yahay mid run ah, taasi oo aanan xitaa qeexi karin. qof walba waan ku jeclahay, waan ku jeclaan doonaa abidkay. waxaa laga yaabaa in aanan ahayn jacaylkaagii ugu horeeyey, laakiin waxa aan doonayaa inaan noqdo wax waliba oo kugu dambeeyey. adduunkaygu wuxuu ahaa mid maran, weliba mugdi ah, laakiin markii aan kula kulmay waxa aan si degdeg ah u dareemay in aan joogo meel sare. waan ku jeclahay. haddii adduunka laga waayo dayaxa iyo xidigaha, haddana adiga ayaa iftiin u ah adduunkayga. waan ku jeclahay. ma jiro qof dhammaystiran, laakiin adiga ayaa ah qofka u dhow qof dhammaystiran. waan ku jeclahay in ka badan intii shalay, laakiin waxa aan in ka badan ku jeclaan doonaa beritoole. waxa aan soo kacaa mar waliba anigaoo dhoola caddaynaya, adiga ayaa sabab u ah. keliya waxa aan doonayaa in aan kuu sheego jacaylkaaga ayaa ah waxa ugu fiican ee igu dhaca. marka keliya ee aan si doqonnimo leh ula qoslo telefoonkayga ayaa ah markii aad adigu fariin kaa helay. haddii ay jirto wax aanan noloshayda bedelaynin, keliya waxa aan dooran lahaa in aan noloshayda ka bedelin markii aan kula kulmayey ee aan ku dhahayay waan ku jeclahay. fadlan nala soco oo mar walba nagu xirnow si aad noogu noqoto dhiirigeliyaheena. hubaal waxaa ah in mar walba aan idiin soo gudbin doonno wax walba oo aad idinka ku qanci doontiin. waxaan ku dadaali doonnaa in arrimaha jacaylka, arrimaha qoysaska, barnaamijyada, barnaamijyada intaba aad naga heli doontaan. Ibraahim Cadab Official. aad baad u mahadsantihiin. doorashada kelmadaha saxda ah ayaa ah waxa ugu muhiimsan. waxa muhiim ah ma lahan in aad jeceshahay qof haddii aadan dooran karin kelmadaha saxda ah. haddaba halkan kaga bogo liiska kelmadaha qalbiga diirinaya oo aad u diri karto qofka aad jeceshahay. hubaal waxa ah haddii aad la wadaagto qofka aad jeceshahay inuu dareemayo in jacayl baaxad weyn aad u qabto. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe inoo saar oo noo sii share garay si aan u helno kuwa adigu kale u wanaagsan. haddii aad hore noola joogtay
waad ku mahadsan tahay oo like inoo saar si aan u soo badinno muuqaalada oo aad noogu noqoto dhiirigeliyeena. waxaan u maleeyay in jacaylka laga badbadiyey ilaa maalintii aad adigan ku jeclaaday. waxa aad bedeshay wax waliba adduunkayga iyo noloshayda. uma baahni kun sababood si qaas u dareemo. kaliya waxaan u baahanahay waa inaan ku noolaado adduunkan. waxaa tahay quruxda noloshayda. jacaylkaan kuu qabo wax kuma lihi aniga. wax waliba oo ku saabsan sida aad tahay iyo sida aad farxadda igu keento qof kasta oo hareerahayga ah. ilaah ayaa ii doortay inaan noqdo lamaanahaaga nolosha maadaama aysan jirin cid i fahmaysa sida aad adigu ii fahmayso. waan ku jeclahay. ila joog mar kasta. waxaad i dareensiisay inaan ogaado inuu jacaylku yahay dareenka ugu fiican ee uu qof dareemi karo. waad ku mahadsan tahay imaatiga noloshayda. waan ku jeclahay. ma qiyaasi karo in aan ka badbaadi karo dhibaatada noloshayda jacaylkaaga la'aantiisa iyo taageeridaada. si adag u qabso gacantayda. waan ku jeclahay. haddii lay weydiiyo in aan kala doorto adiga iyo riyooyinkayga ma garan karo waxa aan samayn doono sababtoo ah in aan kula kulmo ayaa ah keliya riyadayda. waan ku jeclahay. waxaad dhoola caddayn ka keentay wejigayga. waxa aad farxad u keentay qalbigayga. waxa aan ku faraxsanahay in aad adigu tahay waxa keliya ee aan ka fikiro maalinta oo dhan. waan ku jeclahay. waxa ugu fiicnaa ee jacayl aan kuu qabo ayaa ah in aan bilaabay kuraaxaysiga noloshaada in ka badan sidii hore. waan ku jeclahay. xitaa dhakhtarka ayaa la yaabi doono sida uu wadnahayga u garaacmo si xoogan ama si hoose marka aan adigu kaa fikirayo. waxaad iga dhigtaa qof dareen fiican leh. waxaad iga soo saartay dareenka ugu quruxda badnaa kaasi oo aan muddo dheer qarinayay. i rumayso marka aan ku idhaahdo jacaylka aan kuu qabo wax uu ka badan yahay wax walba oo adduunka ah. waxa uu yahay mid run ah taasi oo aanan xitaa qeexi karin. qof walba waan ku jeclahay. waan ku jeclaan doonaa abidkay. waxaa laga yaabaa in aanan ahayn jacaylkaagii ugu horeeyey laakiin waxa aan doonayaa inaan noqdo wax waliba oo kugu dambeeyey. adduunkaygu wuxuu ahaa mid maran weliba mugdi ah laakiin markii aan kula kulmay waxa aan si degdeg ah u dareemay in aan joogo meel sare. waan ku jeclahay. haddii adduunka laga waayo dayaxa iyo xidigaha haddana adiga ayaa iftiin u ah adduunkayga. waan ku jeclahay. ma jiro qof dhammaystiran laakiin adiga ayaa ah qofka u dhow qof dhammaystiran. waan ku jeclahay in ka badan intii shalay laakiin waxa aan in ka badan ku jeclaan doonaa beritoole. waxa aan soo kacaa mar waliba anigoo dhoola caddaynaya adiga ayaa sabab u ah. keliya waxa aan doonayaa in aan kuu sheego jacaylkaaga ayaa waxa ugu fiican ee igu dhaca. marka keliya ee aan si doqonnimo leh ula qoslo teleefonkayga ayaa ah markii aad adigu fariin kaa helay. haddii ay jirto wax aanan noloshayda bedelaynin keliya waxa aan dooran lahaa in aan noloshayda ka bedelin markii aan kula kulmayey ee aan ku dhahayay waan ku jeclahay. fadlan nala soco oo mar walba nagu xirnow si aad noogu noqoto dhiirigeliyeena. hubaal waxaa ah in mar walba aan idiin soo gudbin doonno wax walba oo aad idinka ku qanci doontiin. waxaan ku dadaali doonnaa in arrimaha jacaylka, arrimaha qoysaska, barnaamijyada intaba aad naga heli doontaan. ibraahim cadab official. aad baad u mahadsantihiin.